Hello, heer TikTok waan idin salaamay. So markuu ilmuhu ka soo cawdo waalidkiisa ee u sheego iskuulka waxa ugu horeeya aad samaynaysaa waxa weeye for example waxay ku odhanayaan waxaa jira guideline la raaco iskuuladu guideline bay raacaan la yidhaaho policy iyo procedure iskuulka u yaala marka you have to follow it qof kastoo iskuulka u shaqeeya waa inuu follow gareeyo waa inuu raaco guideline-ka marka guideline-kaasi wuxuu ku odhanayaa marka ugu horeysa ilmuhu hadduu ku yimaado oo waalidkiisa kasoo ashkatoodo waxaad odhanaysaa it's not your fault kaaga maaha waa waad ku hagaagsan tahay inaad noo sheegayso waad fadhiisanaysaa marka you have to listen waa inaad si fiican u dhegaysato waa inaad si fiican u dhegaysato ilmaha marka wuxuu kuu sheegayana waa inaad dhegaysato laguma ogola inaad ku tiraahdo why bay u dhacday laakiinse waad odhan karta xagee ku dhacday qofkee baa kugu sameeyey what questions yarar waad weydiin kartaa laakiinse you're not allowed to confuse wax ku odhanaya ha confuse garayn ilmaha ha ka dhexgelin wuu warwarayaa marka everything uu ku yidhaaho waa inaad dhegaysato marka kadibna waxaad odhanaysaa ilmaha waxaad ku odhanaysaa waad ku mahadsantahay inaad noo sheegtay waad ku hagaagsan tahay ha warwarin kadibna waa inaad wixii qorto oo ilmuhu kuu sheegay exactly siduu kugu sheegay waa inaad u qorto marka kadibna waxaad u tegaysaa head teacherka waa inaad arrintii u gudbiso marka waxay ku odhanayaan statement baad qoraysaa statementka markaad qorto ilmuhu wuxuu kuu sheegay timekuu kuu sheegay waxoo dhan baad qoraysaa iyana waxay u gudbinayaan kuwa socialka ama kuwa ciyaalka caawiya marka kuwaasa investigation ku sameynaya arrinta oo baadhaya hadduu ilmuhu wuxuu sheegaya run yahayna waa ilmihii dee waxay noqonaysaa inay action qaataan haddii kalena halkaas lagaga hadhayaa laakiinse adigu waalidka lama xidhiiri kartid uma sheegi kartid ilmaha hooyada iyo aabihii intaad tugto ma odhan kartid ilmaha waxaan uu ii sheegay waa inaad you have to keep it to yourself only waxaad u sheegi kartaa safeguarding teamka iskuulka taase halkaasay ku joogaysaa arrintu marka haddii aad ilmaha dishaan ama wax ku samaysaan iminkaba ogaada ilmihiinu wuxuu sheego wuxuu macluumaadda u sheego saasaa lagu samaynayaa waxaa loo gudbinayaa kuwa socialka straight away waliba waa agent bay ku odhanaya you have to do it straight away waa inaad gudbiso arrintaas si ilmahaas aan wax damage usoo gaarin oo loo dilin ama maaragtay problem ugu iman waa in ilmaha straight away loo caawiyo hadalkiisana waa in serious laga soo qaado xitaa haddaad arkayso in waxaan aanay run ahayn waxa adiga khasab kugu tahay ilmuhu wuxuu kuu sheego dhan inaad gudbiso way kugula dardaarmayaan markaad shaqada bilowda wax lagu oranaya you have to do this waa safeguarding waa safetyga ilmaha you have to inaad sidan samayso marka intaas idinla share garaynaya insha allah sii share garaya videogan like saara waan idin salaamaya heer TikTok assalaamu calaykum